dhibtaan ku diidaya dhulkan ka qaadaya dhibtaan ku diidaya dhulkan ka qaadaya dhulkan ku diidaya dhibtaanka dhibaad u diiday laba arkeen ninka masaakiinka ma ka leexatay waryaa la yaqaan yaa soodiga tiigsadayba عادي وتكسيت نكاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل قد دعوانا سنة قليل استوديو فالله وحد نقول شرفت عليك أنا طلعك سي سبسكرايب أنا سارت وهشوف فيديوهات أنا عصب ما أنت محرب أنا رياكشن بحيو محرب رياكشن بوك يصير أنا بحيو تيك توك أنت رياكشن بحيو كسر الواد وكلام سنة ونعيم dhibtaan ku diidaya dhulkan ka qaadaya dhibtaan ku diidaya dhulkan ka qaadaya dhibtaan kugu haynaya dhulkan ku diidaya dhibtaanka dhibaad u diiday laba arkeen ninka masaakiinka ma ka leexatay waryaa la yaqaan yaa soodiga tiigsadayba caadi u tiigsatay ninkaas dumaro sabax laga bedelo كان وضعها مساكين كان حبيبي ها قال عاد يجيب يا لي مساكين لا انا قاعد تشوف انت كده اساس غلط انت كسر واحد ما رجعش يميليسي لكن صباح البوقت لا شو له لسان اكون مشغول انت كتبك سابق مشغول ما شاء الله وقبل حجابا dhaqankii diintu ay ka muuqato saas laga rabaa dadka loo baahan yahay ama la rabo in dhiiri geliyo dadka noocaan oo kala waxaan kula yaanu nakiib dhow cadowgii shalay ina dagaayay baleega deeftaan ku reebnay wixii dad yaa بالعكس واي هذا نرتا والله wax fiican maahan gabdhaha waxaan leeyahay waxaad ogaanaysaa horta qalad qofka ilaahay inuu wax tusiyo oo ilaahay soo hanuuniyaa garta qaladka uu galay garta oo ka toobad keena laakiin waxaa doqonnimo ah adoo Soomaali ah dad dhaqan wanaagsan ilaahay kaa dhigay adoo diin leh dadnimo leh inaad noocaas raqiiska inaad iska dhigto waa laga fiican yahay waxyaabaha badan oo dumarku ku galaan naartana waxaa ka mid ah inay jirkaada qaawiyo oo maaragtay ma fiican gabdhaha hadda ma xijaabiin xijaab lama dhihi karo waxaan xijaab maaha walaale fawdo waa dhaaf waxaan marka gabdhaha waxaan leeyahay warsaan wax laga bedelo naarta qoryaha u noqonina laga daayo gabdhahani dahabiga ahaa waa la dooriyey dabciga xishoodka ilaa waa durgsanaantii dahabnimadu soo maaha diinta iyo xijaabka hubaasha haddaan dayacno taa waa dabayshanay wiilashiin intaasaa soo qaaday doorkii dariiqyada kuwaa ku caba xabag daroogaha derbiyada kuwaa seexdo oon hoy dugsoonayay لحظة شوفوا بسم الله عليك والله iga qosliinaya bismillaah ninka carabka wuxuu xanaaneeyaa ama uu balkiliga sheeg oo ilaashada dheerada ama cawshiisa loo yaqaan marka guriga uu joogtay ninkan inay daar u daaqdo waxba hadda la yaabo malahay laakiin nina guriga soo galay uu ku dira marka taas uu qab baasha uu yiri soorti minda uu yiri amalaha uu ku dira calay kula xaal baasha waa bisdeedaba digiga ninkii yarti la gashay bismillaah waraa ajaa'ibka weeyka war wax walba tabaray qaadayaan yaa marka ajaa'ib way aan ku socon dhowr cutub oo xun macnaheedu maaha sheekadu inay dhammaatay كان وكيالك كان شطور waxaasoo kale yaa anaba iga yaabiyo ninkaani dhowr cusub oo xun macnaheedu maaha nolosha inay dhammaato fiidii waa dhammaaday waxaas xikmad miyaa macnaa waxaas xikmad miyaa midii kale ninkaan waa laga yaaba saaxiibo bismillaah ninkaan horta wuxuu soctara waa umaleeyaa ma aqaan
يا عريف عريف ما أنا اللي كان هو حكمتي سوى بقول لكن إيش شعتر نقطين شعتر أنا ما أوقات marka ninkan horta ninkan xariif waay ayaa ninkan horta shactaro miiran waay yaa wixii sagmad maaha laakiin shactaro noqon nin cadaana ayaa codkiisa soo koobiyay bal la daawo yaabka ogow ma bogsiin kartid waxaadan naftaada dareensiin ogow ma bogsiin kartid waxaad naftaada dareensiin asagee u malaydaa ka waran midhaan ninku noocoo helay jaa'ib min alcajaa'ib dadka u awooda badan waa kuwa ugu naxariista kadib markii ay xaaladuhu jeexjeexeen دور لعبتي بسم الله الرحمن الرحيم أسقيه كان كورن إن كان عدان كان إنه كنوعي وركي في ذي سوقات مركب وكل كان عجائب haddii aad dareento caqabado aan raaxo lahayn ama caqli ahaan lagu kicinayo ogow waxaad ku nooshahay meel ka hoosaysa kartidaada واحد صاحب لما فهم بي بسم الله la soco wax kasta oo aad marayso waxay kuu diyaarinaysaa wixii aad weydiisatay حال إيه ديارنا يا لكن بسم الله الرحمن الرحيم وررتي أنا هردع إنك وحش ساعة رواي ما أهن نوع هذا نوعان أودنه ما أهن ما كان وحش ساعة رواي كسعينا ogow ma bogsiin kartid waxaadan naftaada dareensiin markaan xadka waa ka baxa saaxib madadaalo caadi adaa ahba ka soconniyo ninkan waa ka socon mar waliba oo aad dhegaysato BBC-da waxa ugu badan ee Soomaalida laga sheegay waxa weeyaan xukuumad hebel ayaa soo dhisay ra'iisul wasaare hebel ama madaxweyne hebel hase ahaatee qabiil hebel baa ka soo horjeeda sababtuna wax kale ma aha qabiilkaasi waxay ku andacoonayaan anaga xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaare ama madaxweynuhu iskama dhex aragno oo cidna matashaa kuma jirto fiidiyoga kan waxaanu doonaa haddaba si inuu xalino dhibaatada taas ee Soomaali oo dhan ka siman tahay halkan waxaanu ka soo guurinaa dalka Papua New Guinea ra'iisul wasaarahooda James Mara ayaa wuxuu soo dhisay xukuumad cusub xukuumadda cusub wuxuu ku soo daray laba wasiir oo wasaaradda u kala magacaabayna ilaahay yaab ku keenay marka maqasho labada wasaaradood mid waa wasaaradda habboonka يعني كافيغي وسارد يا ودو كلا كدران waxa loo magacaabay waa wasiirka wasaaradda saliidda saliidda lama noolisa ma saliid gaara waa saliidta laga soo saaro geedka timirta loo yaqaan bam oo yeesha haddaba mar dambe wax weeyaan TV-yada iyo ka aragtaan idaacadaha oday kuma qanacsan saamiga xukuumaddu naga siisay wax weeyaan dawladda cusub ee listay kaliya ta u dar ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha lagu dhagan yahay muuqaalka kana si uu sameeyo wasaaradda buga wasaaradda qahwa tashaha tasharaabka tanacnaca even hatta tabusdiqa wixii bila nafaqa hoo qoray idinka laftiina tobanka comment ugu like tabta 30 daqiiqo ama saacada uu muuqaalkan yaala ugu horeeyana wasaaradda waana gaad adiga ruuxadaada wasiir ku magacaabay aan ruuxadaada niyo warkaada batay ninkii waan ka qowta aryaab how habartii aw يا هبرتها دي بدي جرتها هبرتها حبيري ugu habaaro habada la raaday ul dibadda ma jirtaa dibadda jirtaa habartii magaceed iska ma dhaaftiyo mar rabay habartii magaceedii sheeg aab ayaana leeyahay habartii ma ayaan leeyahay ayaa xal loogu dara ya iska dhaafneeyo ari aabo na Allah ku adiga ii sheeg ayaa xal loogu dara ani ka yiin ma waxaas kafshaan habartii ani ayaan kafshaan leeyahay ya Allah ku adiga runtii sheeg ya wala ya aba habartaa waaye joog habartaa maanta ay dibadda aad ayaan iga dhalaysa wax kale oo iga dhashay ma weysi na allaaba ku adiga mugaas waa qurxoonad adiga kuma aqaan iyadana ma ya waa qurxoon ka tafshaaniga dhaliida kulaha wax iga dhashay ma weeyay markaa tafshaaniga dad uga dhashay ma ka diidaniyo waa hooyo Soomaaliyeed laakiin hooyo idib daran waay iyo xadid kama kala xad ya la ya waa galka warninka akwa taaliyo ونديرشي فيديوغاني maanta taas ku yahay waxaan rajeynayaa inaan fiidiyoyaal badan soo duubo oo channelka update ka dhigo idinkuna asxaabi waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ku saartaan like kana dhac ku siisaan aad iyo aad u mahadsantihiin salaama